dadka waxa ugu sheegay ordisay wallahi billahi ana warkiina wallahi أنا بحضر ما بواصل معنا يا دي سكين فرنيا يا وين شباب الله كان عبارة إيمو waa goobtii qaraxa uu ka dhacay oo si toos ah aad uga daawanaysaan TV-ga Shabeelle xaaladdu dabcan goobta waxa ku sugan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida ujeedaan goobta qaraxa uu ka dhacay ayaan ku sugannahay qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa ciidamada ammaanka ma ogola in goobta warbaahinta gudaha ay u galaan inkastoo hadda loo ogolaaday waa tahay weli si toos ah ayaad u daawanaysaan goobta qaraxa uu ka dhacay ex-control Abgooye gaarigaas aad u jeedaan hoomayga ah dabcan waxa uu ka mid ahaa gawaaridii qaraxa haleelay oo dad shacab ay saarnaayeen dadka halkaas wax ku gadayay iyaguna dhammaantood qasaare kala duwan ayaa soo gaaray laamaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay soo gaaray isla markaasina waxa ay ka sameeyeen howlgallo kooban ilaa iyo hadda waa ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka goobtii qaraxa uu ka dhacay dadka na daawanaya haddii aan u micneeyo goobta qaraxa uu ka dhacay waa afaafka hore meesha dhagaxa uu yaallo marka loo sii socdo dhanka ex-control halka loo yaqaano isgoyska Macallin Nuur afaafka hore dhagaxa meesha uu yaallo ayuu qaraxa ka dhacay xaalad xanuun badan ayaa meeshan ka jirta dabcan dad geeriyooday oo u badnaa dad rayid ah ayaa goobta meedkooda laga daadgureeyay
dadka duwan ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay soo gaaray doonaya in ay daawadaan dad badan oo miisaskaas ku ganacsanayay ayaa dabcan geeriyooday oo qaraxa uu waxyeello xoogan gaarsiiyey inta badan markuu qaraxa dhacay dadkii ku sugnaa halkan waxay ahaayeen dad shacab ah waxaana la sheegay in qaraxa meesha uu yaallay dabcan oo qashin uu ku dhex jiray inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in qaraxu ahaa qof ismiidaamiye laakiin ilaa iyo hadda xaqiiqada rasmiga ah lama sheegi karo si toosa ayaad u daawanaysaan waana goobta qaraxa oo ka dhacay shabeelle muqdisho soomaaliya ayaad nagala socotaan saaxiibayaal waqti wacan ayaan idin leenahay qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka ayaa goobta ku sugan oo xaaladda amniga hubinaya shabeelle muqdisho ayaad nagala socotaan si guud sidaad arkaysaanba goobta dhagaxa uu yaallo waa goobtii qaraxa oo ka dhacay waana dhagaxa koowaad ex control afgooye waddada u leexanaysa macallinood ilaa hadda khasaaraha rasmiga lama oga laakiin dad badan oo dhaawac ah ayaa loo daadgureeyey cisbitaallada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho si dhaawacooda loogu dabiibo goobta waxaa ku sugan sidaad ujeeddaan laamaha amniga qaybahooda kala duwan kuwaasi oo hubinaya xaaladda sida ay tahay shabeelle muqdisho soomaaliya ayaad nagala socotaan saaxiibayaal waqti wacan ayaan idin leenahay goobtan waxa ay ka mid ahayd goobaha ugu mashquulka badan marka la eego waddada ex control afgooye dabcan mashquulka zaa'idka ah ee ka jiray ayaa sababay in dad badan oo halkan ku sugnaa waxyeello kala duwan ay soo gaarto oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo xaqiiqada rasmiga ah aan la qiyaasi karin فيلا وساقات فيلا وساقات فيلا